safaaradda turkiga ee ku leedaha magaalada muqdisho ayaa goordhow shaacisay in malaayiin dollar ay turkiga ugu deqday dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo. malaayiinta dollar ayaa la sheegayaa in lagu dardargelinayo horumarka dalka soomaaliya islamarkaana wax badan looga qabanayo amniga iyo xaaladda abaareed. lacagtani ayaa la sheegayaa in si kaasha loogu dhiibay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo islamarkaana ay bixisay safaaradda ay ku leedahay magaalada muqdisho. lacagtani ayaa gaaraysa ilaa 6 milyan waxayna ka qayb ka tahay taageerada ee dowladda turkiga u fidiso dowladda soomaaliya. turkiga ayaa kaalinta koowaad ka gala gacansiinta dowladda soomaaliya kuwaas oo sanadihii ugu dambeysay si weyn u taageerayay. safaaradda turkiga ayaa kusoo qortay warkani boggii ay ku leedahay twitterka waxayna sheegtay inay u gacan gelisay dowladda soomaaliya. lacagtani ayaa sidoo kale la sheegay in wax looga qaban doono miisaaniyadda xilliga kala guurka dowladda maadaama dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ay saldhigan. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala soo doontaan.